بسم الله مدحنا ما سنت سؤال وران كويدينا وحويان دور بري كهر سعيد عبد الله يا دهد ما أنت مدحنا بتلان عطاي ما اسك كابلي بدل لبدا مالمود كدب wax iska kay bedelaman wali Saciid Cabdullaahi waana ما قرت wax adreemeyso dabcan mas'uuliyad baan dareemayaa oo mas'uuliyad baa ay fuushay laakiin mas'uuliyaddu macnaheedu maaha inay aniga i bedelayso hadii ilaahay laakiin mas'uuliyaddu dareenkeedu waa igu jiraa xoog leh marka laga soo tago inaad adiga ku cusub tahay Puntland maxaa kaloo cusub oo laga filan karaa horta Puntland kuma cusbiyada Puntland waa dalkaygii waa dadkaygii waa dad aan aqaan waa dad aan qaybo kala duwan oo dadka bulshada ah ka soo dhex shaqeeyay waxa aan ugu tagi doono xafiiska marka laga reebo waxaan hadda dareemayo ugu cusub oo hadda muuqda bulshada iyo xogteeda iyo xaaladeeda oo aan dareemayo ma jirto waa meel aan si fiican u aqaano bulshada dawlad ceenkee laga filan karaa dawlad tayo leh tayo bal noo jilci maxaad ula jeedaa tayo dawladda tayo leh waxaan u jeedaa dawlad aqoon waayo aragnimo firfircoonaan dhalinyaranimo iyo daacadnimo lagu soo xulay baarlamaanka hal gabar dhex fadhida dawladdaada meeqa gabdhoodan ka filan karnaa waan rajaynayaa gabdhuhu inay ku yeelan doonaan number macquul oo ay ku qancaan waa gartay marka laga soo tago ololaha inaad ku soo gashay luuqado kala duwan meesha tagtaba ballanqaadiyo aad samayn jirtay qofka hadda rabo inuu barto Saciid Cabdullaahi aw Maxamed bal isu sharax imse jira tahay reerkaagu meeqa carruur ka kooban yihiin xageed ku soo kortay dabcan sida la wada og yahay oo taariikh nololeedkay wax ku qoran yihiin meelahaas aan ka wada hadlayo dhan 20 jir baan ahay afar ciyaal iyo xaas leh waxaan ku dhashay oo ku soo barbaaray magaalada Muqdisho ilaa iyo marxaladii koowaad ee jaamacadda burburkii Soomaaliya kadib waxaan u soo wareegay goboladan oo awooyaashii ay ka soo jeedeen intii aan joogayna runtii waxaan wax la qaybsaday bulshada halka degan wax walba ay qabeen maantana iyagaan dhex joogaa waxaan rajaynayaa inta dhammaan meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah oo aan joogo inaan bulshada ku dhex noolaan doono ganacsadaa tahay dabcan hanti aad leedahaana dalkan yaala ma kala sooci doontaa hantidaada iyo hantida dawladda haddaba iskuma dhex jiraan hantideedu waa hanti caam ah oo la yaqaan oo shirkado la yaqaan ku jira dawladduna waa dawlad aan anigu u shaqaynayo ma aha meel hantideeda looga dhex shaqaynayo marka waxba iskuma khaldanaan doonaan haddana iskuma khaldanaan shaqadii ugu horreysad qabatay waxay ahayd inaad xayirto hantida dawladda maxaad ula jeeday shalay warqadaadii dabcan xafiis cusub baan la wareegay waa inaan xog helaa inta aanan wixii iga horreeyey siday yihiin maantana madaxda wasaaradda waa la kulmay waxaan u baahanahay inaan ogaado meelaha xasaaska ah dhinaca amniga iyo maaliyadda labadaba shaqooyinkii ugu horreeyay oo saaka xafiiska ay ka bilaabay ahaayeen inaan la kulmo si aan ula jaan qaado isbeddelka maamul ee aan ku soo biiray marka taa waxay ka tahay inaad dadka xoolahooda u xafido dabcan maamulka ay faraya inaan waxa mas'uuliyadda ay faraysa in waxa baxaya iyo waxa socda aan xogtooda hayo hantida dadka iyo dawladdana waa la xifdin doonaa haddii ilaahay idmo si nidaamka iyo xeerarka maaliyadeeda dalka u yaala madaxweyne waxaa kula tartantay 20 qof oo kale maxaad is leedahay waad dheer tahay oo lagu doortay dabcan 20 qof 21 qof baan ku tartannay baarlamaanka Puntland waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo deganaanta ku jirto xilkasnimada ku jirto ay doorashada u sameeyeen 21 kaas waa dad walaalahaya waa dad mas'uuliyiin waa dad xilal ka soo qabtay dawladda iyo dad aan xilal dawladeed soo qaban oo xilal ganacsi soo qabtay intaba dad waxa way u qalma inay maamulka qabtaan laakiin hadda meel lagu tartamay qof baa soo bixi lahayo anigu baa soo baxay dad badan waxay jeclaan lahaayeen maadaama Facebook badan laga daawan doono marka laga soo tago Saciid Cabdullaahi inuu hadda madaxweyne yahay noloshaada gaar ahaan waad noo sheegtay reer iyo carruur inaad leedahay ganacsade ahayd reer Muqdisho ahayd kadibna dee dhulkii aad ku soo noqotay maxaa hiwaayad ku ah Saciid dabcan hiwaayadeedu kubadda cagta ahaan jirtay laakiin waa cuslaado hadda ma ciyaari karo waxaa intaa ii dheer akhrinta buugaagta iyo la socodka meediyahana waxyaabaha aan u leeyahay way hadeertan
inaan macluumaadka caalamka socdo aan aad ula socdo waxyaabaha kaleeto haddee soomaali waan ahayo sheekadana waa jeclahay. waa gartay nin marka taas micnaheedu waxaa nin bulshaawi aad tahay. anigu saasaan isku haystaa laakiin dad badan waxay dhahaan uma eka Saciid Bulshaawi. ciyaaryahan horaad ahaan jirtay ciyaaraha hadda kooxehe taageertaa marka la eego ingiriiska iyo Spain iyo Talyaaniga. kuwaas waa iga dambeeyeen waagii hore kuwa Talyaanigan aad u daawan jiroon Napoli waan ahaan jiray laakiin hadda waayadan dambe kuwan dambe lama socdo. Napoli waa kooxdii Maradona u dheeli jiray. aad waa maasan Saciid su'aal kaloo dad badan oo reer Puntland ay hadal hayaan ama Soomaalida kale baa jirta oo ah Puntland intay dhisneed 3 magaalo qaybsan jirtay xukunka. Cabdullaahi Yuusuf Galkacyo ka soo jeeda Allahu naxariisto Cadoor reer Qardhaa bedelay Cabdiraxmaan Faroolo reer Garowe ah adiga Qardhaa ka timid kootadan goorma laga baxayaa. horta ani Qardho kama imaan magaaladeeda Boosaaso way hadda saas intaasaan kuu sheegaya tan kale kooto wax lagu qiimay male shalay wixii ka dhacay waad arkaysaan u maleynayo dadku waa u wada dhammaayeen marka bulshada reer Puntland dabcan iyaga iskala go'aanka oo hadda cid jajoobtay male wixii shalay ka dhacay waa arkaysa doorasho adag bay ahayd waxaan rajaynayaa cid la dhahay koota loo xiray dastuurkana kuma taalo cid lagu xirana male laakiin sida aad u dhigaysid dareen waa jiraa waxaan rajaynayaa doorashada xorta markay dhacdo inay markaas su'aashaas ay dhinacuun u dhici doonto haddii la haydo. haddii la yiraahdo waa maasanta Qardho hadal aad ka jeedisay oo waxaa jiray laga yaabo inay kaftanka ahayd markaad la hadlaysay meel public rally oo la isu soo baxay oo madaxweynaha hadda aad bedelayso uu ku sii daba maray adna aad halkan ku soo socotay Garowe hadalkaagana waxaad u dhigtay Cabdiweli sidaan Qardho isugu daba marnay yaan madaxtooyada isugu daba mari doonaa ma waxbaad ogeed maanta waa idinka is daba maraya. wallahi caalam qayb ma ahay laakiin intentionally waxay ahayd waxaan ku jiray campaign sidaan jeclaa un baan sheegay laakiin sida dhacday waa sidoo Ilaahay qadaray way. dabcan shaqada ololaha wax yar ma ahayn dad baana kula shaqeeyay halkeed isla helahayd marka la eego warbaahintii kula shaqaysay lacagtii ku baxday siyaasiyiintii ku garab galay ehelkaaga iyo qoyskaad ka dhalatay cid aad isleedahay alla ilaahay tiir dhaxaad bay u ahayd guusha aad maanta joogto. waxaan isdhihi lahaa waxay dhaxaad u ahaa dhalinyaro aad u fara badan oo tireless ah iyo dadkii meediyaha ka shaqeynayay ayaa campaignka saldhig u ahaa kuwaasaana guusha xoogeeda iskale. iskuulkii aad ka bilowday Puntland sagaashameeyadii markii burburka dhacay dad badan waxay sheegaan raggii ka soo baxay inay maanta garabkaaga taagan yihiin iskuulaadkii Qardho Boosaaso Garowe aad ka bilowday dhalinyaradaas ma isleedahay alla ilaahay way kaa xigeen dadka kale. absolutely waa ku faraxsanahay dhalinyaradaas dabcan aqoon bay lahaayeen dantooda inaan ka shaqeynayana tuhun bay ka qabaan runtiina waa dadka udub dhaxaadka u ahaa campaignkiga waan uga mahadcelinayaa dadaalka ay sameeyeen guud ahaan gudo iyo dibadba dhalinyaro aan kala harin oo waqti badan geliyay oo waqti dheer soo bilaabay waliba marka guushan waa guushooda oran kara. ugu dambeyntii hal kelmad oo reer Puntland ay ka qoraan oo hadduu Ilaahay naftan nagu simo 5 sano kadib lagu xasuusin doono oo dhihi karto ma jirtaa oo ballan oo la guntayo. waxay iga qori doonaan inaan si daacadnimo leh oo karti leh oo hufnaan la aan ugu shaqeyn doono intaasaan u sheegay haddii la haydo. hadday taa dhici weydo iyaga markaas go'aankooda gaari doono judgmentigu waa dhiman yahay hadda maaha. Saciid Cabdullaahi Aw Maxamed aad baa u mahadsantahay. thank you.